السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا كسر دوادا الكوا جنال كيني مهد برا ما أنت حنين هيا عشر آد وحساب بدن أو كساب سن لبدن أري to and from كساب سن to and from إن شاء الله تعالى أي كساب سن هاي أنت أنا عشر كوجلين لمن تذكر أي سنة موضوعا أما channelkan waxaan ka codsanayaa haddii inay wax cusub yihiin inay subscribe dhahaan kabala ka taabtaan all sii taabtaan insha Allah waxa shirku wasiigi doono hadduu alla idmo intii nala sii joogtay oo ina saaxiibka ahayd fadlan waxaan ka codsanayaa inay like noo taabtaan share noo dhahaan mar walba qaybiska insha Allah taala mar walba in joogto noo dhigo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhageysi wanaagsan cashirkeena maanta waa to and from walaalayaal intaas weli waxaan maxaa inkeedan inku maxaan ku radaa sheegaya hoos waxaan ku reebi doonaa link oo مثلا whatsapp-ka ku xiray insha Allah taala marka way fikir halkaas idin soo dhigi doontaa wili hadda cashirkii ma qaban insha Allah taala waan heli doonaa insha Allah taala marka linkaas aad way fikir igu soo reebi kartaa insha Allah taala aad igala soo xiriiri kartaan haddii alla idmo to and from to ereyga to la xiriirada ereyga to waxa laga wadaa ku weyn af Soomaaliga ku ana ku socoto oo kale from waxa la yiraahdaa ka timid oo kale from waxa na ka weyn to waa ku from na waa ka timid ku socota so today maanta we are going waxaan u jeednaa ama u soconaa to see in aragna how sida to use loo isticmaalo to and from sida to iyo from loo isticmaalo ayaan doonaynaa anta iyo look at Firi the following examples telling us so the look Firi at the following examples telling us so the following so look at waxa weeyaan look at Firi weeyaan look ta markay at raacda ayaad Firi dhigtaa look at me Firi look at this lesson ashkan Firi look at the world Firi look at markay tahay ayaad Firi dhigtaa look at the following examples telling us so the Firi where xagee ayuu adiga going to aad u socotaa going to aad ku socotaa ku where are you going to xagee ku socotaa wuxuu leeyahay I am going to waxaan ku socdaa iskuulka marka to waxa weeye waa ku I'm going to schoolka aan ku socdaa where xagee ayuu adiga going from aad ka socotaa from tas waa ka where are you going from xageed ka socotaa weeye I am anigu going from waxaan ka socdaa home guriga marka from waxa weeye ka weeyaan maana ka socdaa I'm going from home I'm going to school socdaa I'm going from home guriga ayaan ka socdaa where xagee has Ali ninka Ali yada come from uu ka yimid come from come waa imaashadii from na waa kaadi come from uu ka yimid where has Ali ninka Ali yada come from xaguu ka imaaday he asaga has come has to qaadan doona insha Allah taala iyaduna hadda macnaha waxba u yeelin ka bood macnaheeda waa tan ku baabi come taas ku baabi caladay he has come from wuxuu ka imaaday Garowe ayuu ka imaaday has come from Garowe ayuu ka yimid where xagee is he asaga traveling to uu safraya traveling safar to taas uu safraya hadda tudo maxay noqotay uu weeyaan kaadi intii ka tagtay yey uu noqotay marka kaadi iska goysay alama where is he xagee uu asagu he traveling to uu safraya way udi marka waatan safarkiina waa kana uu safraya marka tudi waa uu hadda laasoo awal kubay ahayd hadda waa uu weeyaan where is he traveling to xaguu u safraya weeyaan he is traveling wuxuu safrayaa to Garowe into Gura'el buu safrayaa is traveling to Gura'el ayuu u safrayaa okay raalli ah mawsul aan baan ahay marka insha Allah taala saas yeelaysa xogaa khalkaas yar ee ku dhacay ka raalli hada insha Allah taala is traveling wuxuu safrayaa to Gura'el ayuu safrayaa where xagee do we anaga get aan ka helnaa fruit miraha where xagee do we anaga get aan ka helnaa get helid fruit miraha where xagee do we anaga get aan ka helnaa fruit miraha fruit wixii geedka korkiisa ka baxa ayaa fruit la yiraahdaa fruit waa mir geedka korkiisa wixii ka baxo we anaga get one helnaa fruit miraha from trees geedaha helnaa from mana ka helnaa
from time waxay la socotaa get from when get iyo from astooda. Where do we get fruit from? intaan ka helnaa we get fruit waxaan ka helnaa from trees geedaha ayaan ka helnaa weyn ka dabatana marka ka dabatas helidina waa get labadaas socda. We get fruit from trees geedaha ka helnaa. Go out bax horeyaadi go out bax oo inta aada from the class fasalka ka bax. Go out from ka bax kaadi waatana go out waa bax from na waa ka weyn go tag inta aada out banaan xageen ka tagaya from the class fasalka tag. Where are you sorry go out from the class bax fasalka bax weyn amara siinaysa. Go to the class orod fasalka aad go bax xageen aada to bimana xagga the fasalka aad oo the class fasalka. Go to the class orod fasalka aad to maxay ku siinaysaa marka direction ka qofka u dirtay halka u dirtay ayaysaa. From na meeshii aad ka dirtay weeyaan to na waa meeshii aad u dirtay weeyaan oo fiirso. Go to the class orod fasalka aad. Speak from ka hadal hiya halka somebody standing meel qof taagan inta istaagtid halkan ka hadal that means kaadi waatan fiiri. Speak from here halkan ka hadal speak hadal from here halkan ka hadal here maxaa halkan speak from here inta ka hadal ayuu leeyahay. asibidibana wuxuu leeyahay may I anigu miyaan talk la hadlaa to the boss bosska madaxda bosska maxaa la ninka madaxda mas'uulka ayaa boss la maxaa la marka may I talk ma la hadlaa to the boss mana waxay tooda maxay ku tinaysaa hadalkaadan halka uu ku aadan yahay iyo ku socda mana waa ku socda halkaana ku socda mana. May I talk ma la hadlaa to the boss madaxa ma la hadlaa ninka madaxda bosska ma la hadlaa bosska. May I talk to the boss? May I talk to you? May I talk to you? May you talk to me? ila hadle talk to la hadlid. Bring it can waya ugeynaya to me aniga bring it to me can to mana waa halka aad dhankaada wax u wada weeyaan bring it to me aniga to maxay ku tusinaysaa directionka ama jihada ay wax u socdaan ayay ku tusinaysaa handana oo bring it to me can awal ku iyo u ibiyaan ku macnaheedu laakiin mayda waxaad sheegaysaa macnaheedu uu macnaha yar baaba'san yaho laakiin jihada ku tusinaysa imaanaysaa fiirso waatana bring it to me can. May I talk to the boss madax ma la hadlaa bring it to me can. Take me qaad to school schoolka qaad to fiiriya mana dhanka aad u socoto wajahada isku tusinaysaa take me to school schoolka qaad. May I talk to the boss madaxa ma la hadlaa bring it to me can. Bring it can to me and can asaga bring it to him asaga uge bring it to us anaga noo keen saas leedahay. Take me qaad take qaad me aniga to school qaad marka insha Allah haddii laakiin guriga hadda qofka haddii qaad tusaale ahaan take me home bay noqonaysaa haddii guriga lagu geenayo oo nin taksiila aad tirano guriga igee waxaad leedahay take me qaad home guriga to meesha ka baxaysaa. inta badan homeka guriga macnaha looma isticmaalo haddii aan kugu daro waad fiirinaysaa insha Allah to aan to la'aan ayaa la isticmaalaa afwan waad fiirin doontaa waad arki doontaa insha Allah taala number 17 oo kale kugu tusaya matalan waxaan leeyahay take me home take me home oo fiirsa meesha take me home guriga qaad that means waxa waaye we don't use any preposition or matalan I mean to and to das looma isticmaalo homeka hadda guriga u socda I'm going home buddy take me home guriga so marka take me home guriga I'm going home guriga u socda oo fiirso I'm going to school I'm going to school u socda laakiin guriga marka u socda I'm going home ala to isticmaalaysi labada qisas kala duwan insha Allah taala guriga inta badan to da looma isticmaala take me home guriga isticmaala qaad oo guriga igee weeyaan marka insha Allah taala that's our lesson today. waxaan filayaa inuu cashir xiiso badan yahay adoo kala baranaya labada eray ee to iyo from insha Allah taala aad iyo aad ha loo dhageysto dhamayso cashirka mar walba si aad u fahanto wax badan anna waxaan isku dayaa inaan erayda aan si fiican kugu kala saaro insha Allah taala si aad si waadix aad ugu fahamto erayda igu soo noqdo mar walbana waan ku kala saari doonaa erayda qaar waxaan ku dhihi doonaa macno male macnahooda baabi that means waxa way erayda caawiyalka ee fal kaabka ama ficil caawiyaha la yiraahdo ficil caawiyaha la yiraahdo maxaa ama helping verb ama auxiliary verb waxa uu taqaanid
eraydaas markay caawiyaha yihiin macnahooda waxaa lagu xambaaraa ficilka ay caawinayaan ayaa lagu xambaaraa ayaga waxba macno ah uma yeelaysid insha Allah tacaala marka markaas oo kale ayaan ku dhihi doonaa sida haasti hadda halkan ku taalay oo aan ku tusay oo kale oo mathalan where has Ali come from oo kale fiiri he has come from wuxuu ka imaado garowe haasta marka he asaga has asal markay mean verb waxay ahayd he has a book buu haystaa he has a book ayay laakiin hadda kama la socdo buugna magac waa kamna waa ficil markuu ficilkan la socdo haastan caawiya waaye macna uma yeelaysid insha Allah tacaala halkaasna mar walba waan idin caawin doonaa waan idin soo gelin haasta waan idin soo gelin weli ima soo gelin sida dhuu idaas oo kale in kugu soo gelin doonaa insha Allah tacaala marka waxaan ku dhihi doonaa marka he has come from wuxuu ka imaaday haasti marka macnaheedu waa babaya inaad macna u raadaysid marka isku qasbin insha Allah tacaala dhageysi wacan waxaan fadlan in sheegayaa gadaal waxaan ku reebi doonaa link ayaan ku reeba WhatsApp ku soo xiri doonaa insha Allah tacaala kaas igala soo xiriira thank you very much dhageysi wacan